المسؤولين تورو سياسات كبدبادة يهرمرك الصومالي لأن بدبادة أيام ما انتصر اسمها حفيز وقفرت المقالة عنبة حرمت قبل كسرار حفلات بلان ويكون قبتين فافك ولا حفيز كان عصبة ما انت حالي قصيدة رسمية وقتران أي كراحة بين بدوينة تربض وهالكاسي سوس وبحي يجون سلو كرئيس وبلغون وتدين كي يهدف كل السياسة دمعتين هنا يدلك كوهدان وهديه ترى ضلك قبتانه وهرب حالكاسي كهذا بدونيها أولوكن بدبادة ودقمة عنبة كاسي أو شيء إنه سوى رسول وينه أولوكن إسلام مركانا ay ka gobolhaan iyo ka degmahaanba taageero isla garab taagi doonaan urur siyaasadeedkan badbaado oo ku ballan qaaday inuu ka shaqeynayo horumarinta dhinaca diinta iyo ku dhaqankeeda sidoo kale waxay halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kale oo ku hadlayay afka dhalinyarada kuwaas oo ka dhawaajinay maanta taageerayaan ururkan badbaado oo wax ka qabanaya bangaada dhinaca diinta islaamka isla markaana uu waliba hal ku dhigiisu yahay badbaadinta iyo horumarinta dalka dumarku waa hooyooyinkayo waa oreeyahayagii waa walaalahayo waa jecelahay laakiin wixii ilaahay kala gelinayaan annaga xubnaha kala gelin ku sameeyno wixii ilaahay ka caraysinayaan annaga ka soo horjeedna insha Allah taasitaas kaga tagayaa reer cayna waa anigu mar hore halkan soo maray halkaan uu annagoo la socono guddiga cadaaladda qaranka gobolka ugu wanaagsan ee aan warbixinta ka bixinay ee aanu nidhi waa dad wanaagsan oo wax qabsanaya oo isku tiirsan weeye insha Allah haddana taasaan idinku sii bogaadinayna insha Allah waxaan idin waxaan dhahay xoogaa hoosta leedin geliyo in dad deero iyo dahashiil wax xoogaa lacag idin siiyay ma yaba waxaan noo siin annaga ragga iyaga meesha jooga maamulka ay isku tiirsan saasaan ku gaarnaa qabsano inaanu jeel ku dhisano inaanu gobolka hadda dhisayno taasna insha Allah waa sii bogaadinayna insha Allah halka dhalinyarada soo u saxaayatay soo dhaweeyaan madaxda ururka badbaado haddii aanu nahay dhalinyarada gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynabo waxaan aad iyo aad u taageeraynaa soo dhaweynaa ilaaladiinta Soomaaliland gaar ahaan ururka badbaado ururka badbaado waxaan soo jeedinaa madaxa gudoomiyaha ururka siyaasadda badbaado inuu siyaasadiisa ku sameeyo diinta Ilaahay iyo dhammaan dhaqamada diiniga ah ugu dambeyntiina waxaa halkaasi khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyey gudoomiyaha urur siyaasadeedkan badbaadada iyo horumarka Somaliland mudane Axmed Cali Shire isla markaana ka soo sheekeeyay ahdaafta iyo siyaasadda ururkan ku hagayo dalka waa haddii uu ka gudbo tartamada ku soo fool kale isla markaana uu talada wadanka gacanta ku dhigo isagoo gudoomiyuhu sidoo kale ka codsaday shacabka reer Caynaba inay taageeradooda u muujiyaan ururkani saacadii aanu ballanay inaan saaka 8 barkii magaalada soo galno iminkana waa xilli galabnimo oo dambe ayaan idin soo gaadhnay aad iyo aad baan uga cudur daaranaynaa aad iyo aad baan idinka raali gelinaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin sugitaankiina iyo soo dhaweyntiina iyo sida aad noogu soo diyaar garowdeen ururkan badbaado oo maanta halkan aanu xafladiisii xafiis furashada aynu ku hayno runtii waa urur siyaasadeed ka mid ah urur siyaasadeedka Somaliland ee ku tartamaya dawladaha hoose oo laga qabanayo Somaliland hadii Ilaahay inoo fududeeyo sanada kan bartamihiisa ururadaas uu ka tirsan yahay waa urur siyaasadeed ururadu mid waliba waxay leedahay ama urur waliba uu leeyahay astaan u gaara xeer isaga u gaara tilmaan u gaara siyaasad u gaara fikir u gaara ururkan badbaado waxa uu runtii ururada kale kaga duwan yahay aan isleenahay sidaas umada iyo calanka iyo shaabado iyo shacaayirku ay kala duwan yihiin urur waliba ururada kale kaga duwan yahay keenu waa urur aynu wada leenahay waa urur insha Allah sida calankiisa ku arkaysaan dooga ah aynu rabno inaynu barwaaqo ku ninkii Afrika joogay barwaaqadaas kaga noolaa maanta bacaadka haddaad iska seexato banaanka caynaba waxa la waxaad u baahan tahay ma jirto xitaa go'aal tuwanta uga baahan dad sharkaaga barkato laakiin maanta ninka Yurub jooga taa awoodi maayo ninka Khaliijka jooga taa awoodi maayo sidaa ma tahay badbaado sidaa ma ku qaadanaynaa intiina ay maqlaysaa inta maqan gaarsiiya sidoo kalena waxa uu siyaasadeedkan badbaadada iyo horumarka Somaliland ee badbaado xafiisyo ka furtay magaalooyinka og iyo wadaamago oo si diiran lagu soo dhaweeyay asigastoo ahaataba waa markii ugu horeysay urur siyaasadeedka badbaadada iyo horumarka Somaliland ee badbaado u socdaan noocan oo kale ah ku soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar iyo waliba deegaamada hoos yimaada isla markaana uu xafiisyo noocan oo kale ah ka furto tan iyo intii lagu dhawaaqay furashada ururada siyaasadda محمد آدم دري تلفزيون كعالمي Somali Channel Caynaba